kulanti wanaagsan oo wacan meel kastoo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada toddobaadkan aanu diiradda ku saarayno haddii allaha awoodda la yidhaahda isbeddelka sharciga ingiriiska ee la halmaala organ donors waxaa la yidhaahdaa amase xubnaha bini'aadanka oo qofku markuu dhinto inta laga saaro qof kale loo isticmaalo xubnahaas ayaa sharci laga soo saaray sharcigaas ayaana dhowaan dhaqan gelaya gaar ahaan bilaha nagu soo socda sidaa awgeed waxaanu jecelnahay inaanu wax ka ogaano xubnahaasu qaybaha ay yihiin oo aad sawiradooda arki doontaan dhakhaatiirtuna ay noo fasiri doonto haddii ilaha yidhaahdo iyo weliba dhinaca diinta waxa ay arrimahan ay ka qabto diinta islaamku in jirkaagii qof kale la siiyo oo markaa qofkaas laga yaabo mararka qaarkood inaynan isku dhaqan iyo isku afiyo aynan ahayn mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qof muslima in la siiyo keliyo ama wadne ama sambab ama indhaha gudahooda oo maaragtay qeybta madow indhaha oo dadka laga saaro qof kale la siiyo waxaa laga yaabaa qof muslin ah in la siiyo laakiin laga soo saaray qofaan asagoo muslin ahayn amase dhinaca kaleba loo dhigo qof muslima laga saaro dabeedna qof kale la siiyo qofkaanuna uu dhintay asaguna markaa keliyihii ama wadnihii ama beerkii ama sambabadii uusan isticmaali dooninin arrintan waxay uga duwan tahay arrimihii hore ee waagii hore waxay ahayd qofku markuu dhinto ehelkiisa ayay dhakhaatiirtu weydiisan jireen inay waxaas ka saara keliyahaas ka saaraan iyo wadnahaas iyo laakiin waxaas hadda waa la joojiye waxaas ma jiraan haddii aad caawa dhimatid ilaahay cimrigaaga ha dheereeye hana barakeeye oo tii alla kuu timaado marka sharcigaana uu bilowdo kadib oo aanu dib ka ogaan doonno goortuu bilaaban doono iyo waktiga iyo wax walbaba oon aada u fogeyn waxaa dhacaysa cidna waxba ku su-aali mayso haddaad dhimatid keliyaha wadnaha beerka indhaha sambabada xubnahaas muhiimkaa dhan waa lagaa saaraya dabeedna dad kale ayaa looga faa'iideynaya ayaa la siinaya laakiin waxaa jira fursad ah qofkii aan doonaynin inuu ka qayb qaato arrintaas foom baad buuxinaysaa waxaadna odhanaysaa anigu ma doonayo inaan ka qayb qaato dabadeedna 2 wiig gudahood wasaaradda caafimaadka waxay kusoo diraysaa warqad go-aankaagii ku saabsan oo ay leeyihiin qoraalkaagii waana soo gaaray go-aankaagii waanu fahanay hadda kadibna waxaa weeye rekoorka saasaa kugu jiraysa waad bedeli kartaa su-aalaha isweydiinta loo ka imaan karaa waxay yihiin barnaamijkan caawa waxaa laga yaabaa waalidka oo xanuunsan ama qof aad jeceshahay ehelkaaga qaraabadaada oo xanuunsan ayaa wuxuu u baahan yahay wadno ama keli ama beer ayuu u baahan yahay qofkii siin lahaana waa qof asagu markaas aan kugu ehel iyo qaraabo ahayn inaad qaadatid waad ku faraxsan tahay oo ehelkaaga iyo qofkii aad jeclad la badbaadiso laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda dadka muslimiinta ama soomaalida baan idhaahne ma rabaan ayagu kooda inay bixiyaan oo qof kale la siiyo laakiin qofkii wuxuu ku qanacsan yahay inuu asagu mid helo marka arrintaa isma keenayso marka waxaanu doonayna insha allahu tacala dhinaca diinta iyo dhinaca daawadaba inaan wax ka ogaano waxaa marti iigu ah stuudiyaha khayr allaha siiyo shiikha t v-ga sheekh cusmaan usuuli oo halkan nala jooga caawa aan aad iyo aad uga mahad celinayno iyo weliba garabkayga kalena waxaa fadhiya dr xuseen sheekh cali oo asagu guys hospital ku yaala central london ka shaqeeya isla mar ahaantaana ah allah mustacaan mid ku takhasusay asagu waxa loo yaqaana hidasidaha geneticist weeye hidasidaha ayuu ku takhasusay marka insha allahu tacala su-aalahaas ayaanu weydiin doonaa waxaan rabaa inaan ka afeefto oo inkaga hor dhigo marka hore barnaamijkaanu ma aha barnaamijkii qiimaha badnaa ee ilaahay dadka lagu baraayay sheekh usuuli iyo su-aalaha diinta iyo diinta looga jawaabaya ma ahan kaas barnaamijkaas wuu baxay haatan laakiin insha allahu tacala kuwa kale la socon doontaan barnaamijkaanu gaar ahaan wuxuu quseeyaa soomaalida u k joogta oo arintaanu ay ku saabsan tahay ama ay qusayso sharcigaanu already wadamadan u k ka tirsan england oo kale ayuu hadda laga sharci gelinayaa laakiin wales horey bay ulahayd scotland horey ulahayd sidoo kale north ireland waxaa la rajeynayaa sanadka dhammaadkiisa inuu ka hirgalo intaana halkaan imaan waxaan la hadlay dadka gaarka ah oo arrimahaas ka shaqeeya waxayna ii sheegeen sida haddaan idinkugu sheegaya inay wax u dhacayaan lana sharci gelinayo ka tabaabushayso ehelkaaga foomkaas u buuxi haddii aad rabtid inaad kelidaada bixisid ama wadnahaaga bixisid markay tii ilaahay ay kuu timaado haddii aadan doonayninna sidoo kale waad buuxin kartaa dr xuseen iyo sheekh cusmaan labadiinaba soo dhawaada xuseen adi haddaan kugu horeeyo marka hore waxaa noo dulmartaa xubnahan guud ahaan muhiimadday biniaadamka u leeyihin waa ognahay waay loo rabaa in la bixiyo qofka looga qaato si qof kale loogu badbaadisho maxaa waxaan horey loogu sameyn waayey haatan maxaa keenay arrintan bismi illaahi raxmaani raxiim marka hore ilaaha mahad leh oo meeshaan iskaan keenay xafladan
waxaa u mahad celinayaa universal oo arrintan noo suurto gelisay inay caawa noo qabsanto barnaamijkan. waa universal oo ku mahadsan yahay. waxaa mar kale u mahad celinaya walaalkay cabdixaafid kheyr laha siiyo oo barnaamijka noo daadihiyay. cabdixaafid waa mahadsantaha walaalkay qaaliga ah. waxaa arrintan keentay markii ay yaraatay dadkii doonarka ahaa oo dhiibaya xubnaha organada dhiibayeen markii ay yaraatay, sababtoo ah qof walba familkeeda ayaa wuxuu leeyahay qoftan ma siinayo, qoftayda xubnaheeda lama dhiibayo. marka sharcigan hadda ayuu cusub yahay, wuxuu dhaqangelayaa 31 bisha 2020 haddii aadan buuxinin form oo NSH ay leedahay oo opt out waay. haddii aadan buuxinin formkaas micnaheeda waxa waa aamusto wixii ka dambeeya waqtigaas waxaa raalli ayaan ka ahay waay. siday u badato dadka u dhimanayo organ donorka darteed, waxaa jiro dad fara badan oo sanooyin badan sugaya in ay helaan organo. arintaas UK wadamada kale way ka dambeysaa. dadka organadu dhimanaya ayaa faraha ka badatay. sidii arintaas u xadidi lahayd ayay waxay go-aan ku gaartay sidii qof walba oo UK inay go-aanka iida ay gaarto. haddii go-aankeeda ay gaari weyso micnaheedu waxa waaye raalli ayay ka tahay. foomkaas waajib waayo qof walba oo ka weyn 18 waa inay buuxisaa wixii ka dambeeyo bisha abriil 31geeda. waa go-aan cusub. organadaasna waxay kala yihiin wadnaha, baarka, kelyaha, sambabada, indhaha oo koorniyaha ay tahay. waxaa kaloo jiro oo magaceeda mindhicirka yar iyo magaceedii iyo tissue ayaa jira. marka qaarkood dadka qaarkood waxay dhiibaan maqaar oo lagu daaweeyo dadka dhinto. marka oo dadka dhinta laga qaadaya, dadka gubta ayaa lagu daaweynaya sida maqaarkii ka dhintay si loogu daaweeyo. saa u jeedin sawirka ka arkaysiin waxa waaye waa kaasa, waa kelyihii, baarkii, wadnihii, samabadii iyo bankriyaska mindhicir yaraha iyo koorniyaha. intaas ayaa magaceeda UK transportation laga sameeya waqtiga hadda la joogo. marka qof walba oo Soomaali ah ha dhoobti yeesan calaacalin ayna dhihin ma ogeyn waxa ka qaban karta ma jirto. qofta haddii ay dhimato iida ayna buuxin go-aanka iida iskale, haddii aysan buuxin waqtiga ay nooshahay micnaheeda waxa waa adiga go-aan kuma lihid, xubnihii waa laga baxaya, go-aankan qofta iskale sharci yaala waa hadda. go-aanka waxa iskala dhakhaatiirka iskale markaas ha arinta waa ka wareegtay ehelkaaga waa ka wareegtay. nacam marka waxay u taala oo keliya dowladda u taala waxay ka samaynaysa iiday jirtaa. markaas dad waxaa jira aaminsan ama oranaya mararka qaarkood waxaa loogu talagalay muslimiinta oo keliya in laga baxo. ma wax muslimiinta keliya quseeya mise waa cid walba? cid walba waay. muslimiinta waa sanadahan dambe way ka dagaalami jireen. qofta haddii dhimato familkeeda ayaa u qayli jiray oo dhihi jiray qofta tan laga qaadi maayo organada ayaana laga taabanin. sharci ayaa yeelay dadkeeda familkeeda ayaa magaceedii next king ayaa wax dhihi jiray maya. haddoo mayra waa la maqli jiray. laakiin hadda sharciga ayaa waxaa la marsiiyey baarlamaanka marka la marsiiyo wuxuu yiri qof walba waa iida in codkeeda ay dhiibata. haddii aysan dhiibanin micnaheedu waxa waaye raal ayay ka taawa. haddii dhimato waa laga baxaya organada. muhiimad intee la eg bay leedahay go-aankaas markaa qaadatid inaad kelyahaaga, beerkaaga, wadnahaaga sidaan arkayna aad dhiibtid iyo inaadan dhiibinin. markaa go-aankaas adigu uu kaa soo go-o kadib inaad ehelkaagii qaraabadaada u sheegtid go-aankaagii aad gaartay maysan muhiim ahayn laftigeedu? muhiim waay. marka waxa waaye qofti samayso waa inay u sheegtaa familkeeda. familka waa inuu iska warqabaa. qofta buuxiso waxa waaye foomka ayaa dhahaya xataa marka aad buuxinayso familkaada inaad u sheegto waaye. marka aad buuxiso familka inay la socdaa waa inaad organ donor tahay inaad diiday inaad kala cadeyso waaye. haddaa aamusta micnaheedu waxa waaye waa ogoshahay. haddii aad buuxiso foomka oo internetka aa gasho NSH-ka wuxuu kuu soo dhacayaa lawi gudaheeda. number ayaa leedahay. numberkan markuu kuu soo dhaco familka noo ogyihiin. familada ayagoo dhammaantood hal mar buuxsi karaan waan dhammaata markaas. waa gartay sheekh cismaan usuul intaan u gudbiyo waxaan jeclahay inaan xusuusiyo daawadayaal. dabcan fikirkiina khadadka taleefonka ay qayb qaadan kartaan haddii ilaahay yidhaahdo. muuqaallo ayaanu idiin soo wadnaa iyo weliba foomkaas sida loo buuxiyo oo miithaal ahaan ayaan idiin soo diyaarinay. qof baan iska dhignay isagu nool oo doonaya markaas inuu foomkaa buuxiyo. qofkiina iska dhignay marka qofkii aan aqoonin luuqadii oo kale wuu arkayaa. magacaagii, adreeskaagii, meeshaad ku qoraysid iyo macluumaadkaagii oo dhan ayaan idiin soo sahalnay. dhinaca kalena NHS-ka website-kooda tegi kartaan. dabeedna organ donorka markaad tagtaan page-kooda ayaad maaragtay wixii macluumaada oo halkaan aanan kusoo bandhigi karinin aad ka heli kartaan. diintu maxay ka qabtaa? wadnahaaga inaad qof kala siisid, indhahaaga qof kala siisid,
iyo xubnaha kale oo muhiimka sheekh cusmaan soo dhowow بارك الله فيك أخي ودوم جزاكم الله aadan kugu faraxsanahay inaad barnaamijka naga qayb qaadatid بارك الله فيك muddo isuugeen dambeysay نعم بارك إن شاء الله فيك. سودو. جزاك الله خير marka hore waxaan u mahad celinayaa bahda university iyo walaalkan Cabdixafiid oo markaas ku baraarujiyo ummadda waxay u baahan tahay islaamkana waa tuuna amray wa taawunu al in la isku caawino taqwada iyo al birri wa taqwa taqwada iyo birka samafalka saasoo kale isku caawino marka jazaahu allah khayr ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariyay miisaanka xasanaadka inuu ku saaro markaas mowduuc muhiim inoo keento mas'alada oo ah in la tabaruco xubnaha in la tabaruco culimada laba qaybo badan ay kala qaadaan wax tabaruc iskama marka hore hadda si aan u fahmay barnaamijka wax ka hadlaysan idinka tabaruc nin dhintay markuu dhintay kadib wax ma tabaruc dhimasho kadib wey dhimasho kadib waa ka hadlaysaan dhimasho ka horna waxa waa la tabaruci karaa masalada dhimashada kadib culimadu isku khilaafsan yihiin xaqiiqatan khilaafkooduna wuxuu ku salaysan yahay qofka muslimka ah xubnihiisa ma milkiya asaga milki ma yahay tasarufkeeda ma leeyahay khaasatan markii ruuxa uu ka baxo qofka xukunkiisa wuxuu ku wareegayaa xuquuq uu lahaanaya 4 xuquuq oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadka kale ku waajibiyey asaga waa ka dhacday mas'uuliyadda waa ka dhacaysaa wax laga rabo male camalkiisa waa go'ay wax kasta waa go'aya maadaama uu tasarufkiisa go'ay marka culimada waxay qabtaa in waxba uu milkigiisa gacantiisa ku jirin maxaa yeelay waxaad bixinaysa waxaa shardi ah in waxaad leedahay ay yihiin amaamush adiga walidaalika nafta inuu qofka lahayn waxaa loo soo daliishadaa qofka hadduu isdilo hadduu yidhi naftaana iskale qara iska tuuraya naartuu galaya uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii buur iska soo tuura ninkii suntu cabaya iyo qayaamaha la keenaya naarta la galaya maadaama uu tasarufkeeda marka uu lahayn bini aadamka milki uu lahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maalig uu yahay taasi waxay usoo daliilsadaan meydkan inuu leeyahay xurmo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kasru lmeyti cidaamu lmeyti waxa uu asagoo nool soo la kebiyaa meydka laftiisa in la jebiyo ma banaano uu yidhi nabiga calayhi salaam asagoo nool oo lafta ka jebiyo soo kale wey marka ixtiraamkaas uu leeyahay soo daliilsadaan waxay leeyihin marka ma banaano qofka muslimka ah inuu xubin uu bixiyo waxyaabaha kale soo daliilsadaan waxaa kamid ah qofka muslimka ah mar kasta inuu ilaahay la hortago xubnihiisa kaamil ah oo asoo naaqis u tagin walidaalika ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah inuu dhihi jiray allahuma matacna biasbaacina wa absaarina wuxuu leeyahay wajcalhu waaritha mina ilaah nooga yeel kuwana dhaxla oo xataa haddaan dhimano oo dhaxalnoo naqda marka adiladaas markay soo daliilsadaan laakiin culimada mucaasirka oo majaamicda fiqiga majmicii 88 lagu qabtay jidda oo raabita caalamka ay qabatay wuxuu baneeyey in xubnaha la bixin karo oo qofka meydka ah uu tabaruci karo uu dhihi karo aniga marka haddaan dhimo uu ka dardaarmo uu dhihi karo qof ha lagu nooleeyo ayayna waxay usoo daliilsadaan aayadda qur-aanka ahayd waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican marka waxay leeyihiin waxay lamid tahay maalkiisa oo kale maalka naftiisa maalka ilaah iskale milkiga qofka ma laha maadaama uu milkiga uu lahayn haddana waa sadaqaysan karaa sadaqa jaari ku bixin karaa sadaqa caadi ku bixin karaa marka kana saas camal ay tahay inuu qof uu ku nooleeyo majaamic inta badan laakiin shuruuday u dejiyeen ayagana kuwa xataa baneeyey waa qaydeen iska banaano kow waxa la bixinayo kow waa inay ahaanin waxyaabaha raad reebi karo masalan ninka xaniyihiisoo kale ma tabaruci karo maxaa yeelay xaniyaha waxay keeni karaan inay hadhow beri oo qof kale oo ka dhal maxaa yeelay mina ayaa ka ratamayso minadaas waxaa laga yaabaa qof dhintay inuu wax dhalo sidii loo diiday gabadha inay ukunteeda ukunteeda lagu abuuro islaan kale waa diideen culamada maxaa yeelay yaa hooy uu noqonaya cunugaas marka wixii oo nasabka qaladka uu ku ridayo way ka asarraad waxay kale ka reebeen sidoo kale waxyaabaha oo ayagana ah raad keeni karo qofka hadduu dhinto raadkaasna qasitiinkaasa kamid ah ama waxaa kamid ah waxyaaba qofka waxay yidhahdeen qofka nool waa taas qofka dhinta maaha oo hadhow asaga wax u dhimi karto si kastaba ha ahaatee culamada markay maqaasidii ay fiiriyaan ay dhahaan qof waa la badbaadi karaa saasay u baneeyeen iyadoo shuruudahaas oo ka reebaya waxay kale shuruuda ka dhigeen waxay yidhahen qofka la siinayo horta islaamka ma yaqaano walqad karamna bini aadam wey bini aadamka markii laga hadlayo islaamka kama reebo gaal iyo muslim kalama saaro oo markii mucaamalaadka dadka gaalka iyo muslimka lagu kala saara ee lagu kalama saaro naf ahaan loo kalama saaro naf waa naf nabiga calayhi salaatu wasalaam mayd nin yuhuudi janaasadii u istaagay markaas rasuulka alla ninkan waa yuhuud markaasuu alaysa nafsan uu soo naf ma ah meydkii uu istaagay nabiga calayhi salatu wasalaam walidaalika gawaarida iyo jidka markay maraan gaalada iyo naf ma deeta waxaa la rabaa gaari inaa ka ana dhahda gaal ku sheelaraysid meydkiis la wado ma banaano maxay nabiga ixtiraamay saas daraadeed ay waxaa laleeyahay haddana waxay leeyihiin laakiin gaalka hadduu yahay waxaa loo shardiya gaal muxaarib hadduu yahay
gaal oo dagaal nigala dhexeeyo hadhow macnaha muslimkii uu kusoo qawiyeysana xoolihiisii oo markaas uu noqonaya qof waxa islaamku wax ku dhimay laakiin dadka kale laa yanhaakum allahu ilaahay subxaanahu wuxuu leeyahay an aladiina lam yukhrijuukum min diin kuwa min diyaarikum niga soo saarin anta baruhum wa tuqsitu waxa kamid marka xataa gaalka waa la tabaruca si aad ugu qaadanaysid ala qaadan kara marka masalada waa masala khilaafi culimada inta badan oo mucaasiriinta ay majaamicda ay banaysa iyagoo duruufahaas oo fiirinayo nacam sheekh Usmaan arrin waxa jirta hadda xubnahan hadda dowladda ingiriisku ay ka hadlayso in lala baxay hadduu qofku dhinto ogolaado iyo hadduusan saxiixinin oo layska qaadanayo labadababa dabcan kuma jirto xubnahan taranka oo reebo maxaa la lahaa aahaarta hadda aad sheegay sidoo kale laakiin kaba soo qaad mustaqbalka dhow haddii la gaaro inuu saynisku uu hormaro calaman insaana maa lam yaclam buu ilahay leeyahay haddii la gaaro oo ay dhacdo nin xiniyihiisa in laga bixiyo nin kale loo geliyo oo ninka xiniyaha loo geliyo uu ku xaragoodo ubad baa meesha ka imaanaya ubadkaas ma nin dhalay ma nin dhintay baa dhalay mise ka nool baa dhalay may arrintaas ma banaanaba wixii ka ratib maayo marka hore waa reebeen mas'alada kale oo dadka ay ku fikirayaan oo ah gaal wadnihiisa haddii lagu geliyo gaal dhinta laftigiisa haddii wadnaha lagu geliyo qofka gaal muu noqonaa gaal ma noqonaya qofka muslimka ah markasta xubinta islaamka waxa tabaca la yidhaahaa jus-iga yar marka qaybta yar markasta qaybta weyn ma saamayso biyaha waxaa la yidhahaa idaa balaqa qulatayn laa yunjus ma nijaasoobaan marka qofka muslimka haddii xubin oo gaal la geliyo xubintaas muslim ay noqonaysaa haddii xubin qof muslim laga bixiyo gaal la gelin xubintaas gaal ay noqon maxaa yeelay aktariyada meesha badan ayay raacaysaa markasta marka dadka isku mashquuliyaan maaha qalbi gaal ay ugu jiro waxay ugu jirnaa insha Allah aadan ku mahadcelinaa daawadayaal dabcan arrintaas xubnaha taranku barnaamijkeena qayb kama ah dowladda ingiriisku ma wado laakiin waxaa jira gabar Sweden u dhalatay oo hooyadeed ay siisay ilmo galeenkeeda ilmo ku dhashay baa jirta laakiin mawduucanu caaw kaama quseeyo toddobadan xubnood oo hadda halkan soo saarnay ama organ baanu ka hadlaynaa wadnaha keliyaha iyo waxyaalaha lamidka waxa dowladda ingiriisku ka hadlaysana waa kaas dadkeena ingiriiska jooga waxaan rabnaa inaan la jaan qaadaan waxa socda oo saameynta nagu leh ee aanan maaragtay insha allahu tacaala waxyaala aanan jirinin aanan dadka isugu sheekaynin isbitaalka tegaysaa keliyaha lagaala baxaya wadnaha lagaala baxaya gaaladu dadkeena ceybin oo lagu dilaya dadka wax sidaan loo sheegin oon la didinin insha allahu tacaala intaanan doctor xuseen kusoo noqonin sheekh Usmaan halkan waxaan hadda ka hor 9 sano ka hor waraysi uga qaaday nin Soomaali ah oo wadna nin Ingiriis oo baabuur shil la galay ku dhintay loo geliyay waxyaalaha aan weydiinay waxa kamid ah dabeecadihii wadnahaas ma leedahay buu yiri wuxuu yiri kafeega ma jeclaan jirin ninkaan nin kafeega cabba ayuu ahaa in badan marka dabeecada noocaas oo ninkaas ka dhaxlay laakiin waa nin Soomaali oo muslim oo tukado Ilaahay yaqaan marka hadalkaaga oo soo dhaweynaya دكتور حسين maxaa kaaga baxay sheekh Usmaan hadalkiisa wallahi sheekh Usmaan arintiisa wax weyn ayaga baxay waxa waaye arinta diinta haddii qof nool abadbaadiso waxa waaye qof hadda badbaadiso bani'aadam badasho waxa adoo bani'aadamku dhamaantood abadbaadisay marka waxa waaye dadka bani'aadamka waxa waaye go'aankooda ayaga iskale caawa ani meeshan waxa usoo fariisto waxa waaye adigu meesha waxa usoo fariisto rasuul waxa usoo fariisanay inaa dadkeena wax barno ama u sheegno ayaga go'aankooda ayaga iskale oo ayaga go'aan ay ka gaaraan wax ay rabaan ay go'aankooda ka gaaraan laakiin ay hadhowtay calaa calin dadka laga qaadanayo ama dadka la rabo haddii wax yar aa galo oo wax yar sii gudbo waa dadka galo accidentiga dhalinyarada markay galaan magaceeda shilka oo ay maskaxda dhimato markaas waxa waaye mashiina lagu rakibaa mashiinka ilaa waqti lagu haynaya haddii maskaxda ay dhimato waa laga bixinaya dadkaas waa dadka magaceeda organ lagala baxo ama qofti madaxa dhiig aga furmo oo laakiin jirkiisa kala caafimaad qabo laakiin qof kansar qabo ama qof infection u dhintay ama virus u dhintay wax oo cudur la iska kala qaadi karo qof qabto qofka looma siinayo dadka oo magaceeda lagala baxayo organada waxay yihiin waa dadka caafimaad qabay oo laakiin galay shil dadkaas ayaa lagala baxaya bas aad mahadsantihiin waxaan u gudbinaa khadadka telefoonada muuqaalada noo soo socda dhawaan waxaa shaashada ka arki doontaan 3 page ama 3 bog oo sida foomka loo buuxiyaa insha allahu tacaala oo aad arkaysaan waa kaasa mithaal ahaan baa laidinkugu buuxiyey foomkan waa qof asagii iska dhigay inuu maaragtay isagu doonayo inuu ka baxo ama uu galo oo kale pagekii koowaad waa kaasa meesha u hooseysa ee greenka ah waxa ku qoran haddaad doonaysa inaad tiraahdo ma doonayo inaan anigu bixiyo xubnahayga
sidoo kale haddaa rabtid inaad bixisidna fursad kaluu ku siinayaa oo waxaad leedahay haddii aan dhinto waxaan diyaar u ahayn kelyahayga wadnahayga beerkayga sambabadayda indhaha qeybta yarta oo madow wax laga arko in maaragtay loo gudbiyo qof kale si uu ogaga faa'iidaysto marka labadaa fursadood baa leedahay tv-ga universal marnaba idinma lahan ha bixinina iyo bixiya laakiin annaga shaqadeena waxay tahay inaan bulshada wacyi gelino oo macluumaad ku filan aan siina markaa qofkuna uu asagu go-aankiisa gaaro khadadka teleefonada u gudbaynaa qofka u horeeya halo calaykum salaam walaal soo dhowo xaafid waa ku salaama adiga iyo culumada sheekha iyo dhakhtarka kula jooga waana idin hambalyeynaya sidaad ummadda u wacyi gelinaysa adigana ilaahay ha ku karaameeyo insha allah aamiin soo dhowo waxaan rabaa inaan sheekh suuli su-aalo waa gartay macnaha waa gartay waa fahmay laakiin waxaan rabaa inaan su-aalo haddaan anigu doonarka aan dhiibo oo aan iskay u dhiibo on idhaahdo anigu haddaan dhinto hadda wuxuu dhakhtarku sheegay qofkii shil ku dhinta ama haddii aan idha haddaan shil ku dhinto waa doonarkayga waa dhiibaya haddaan idhaahdo oo aan matali qof gaala la geliyo macnaha sadaqa ma ii noqonay horta doonarkayga kow marka hore sadaqa ma ii noqonaya labo haddaan qodobka labaad haddaan qof gaala siiyo oo qof gaala la geliyo wax oo ku noolaado ku shaqaysto wax dembiya ma ku lehay waa garta laba su-aalood wanaagsan oo aad u mahadsan tahay labadaas su-aalood teleefon kalean ku xijinaynaa si aan su-aalaha isku mar u qaadano qof kaloo ku xiga halo asalaamu calaykum calaykum salam walaal soo dhowow waa madhowahay cabdixaafid waa ku salaamay waana kaaga mahad celinaa programka quruxda badan aawadid magacaa walaalkay magaceyga waa cumaraa la dhahaa cumar waa kuu soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhowow waxaana kasoo hadlaa dalka holland inkastoo laakiin barnaamijka u k laakiin inaad ka dhigtay ahayd markay orgaankan yurub oo dhanaa sheekadan hadda ay bilaabeen marka koleytaba waxaan rabay inaan sheekh usuuli aan weydiiyo dhakhtarka horta waa salaama xuseen khayr holland waayo waa salaama sheekh usuuli waxaan rabaa inaan weydiiyo diiniyan maxay ka qabtaa ma xaaraana mise way ogoshahay inaad qofku badbaadiso taasaan rabay inaan si diiniyan sababtoo holland xataa programkan way bilaabeen oo waa la wada buubuuxiyey anigaas kula hadlayo waa buuxiyey marka diiniyan maxay ka qabtaa taasaan rabay inaan sheekha aan weydiiyo waana mahadsan tahay cumar taankii waa mahadsan tahay sheekh cusmaan baraka allah fiik sadaqa miyuu ii noqonayaa haddaan xubnahayga bixiyo haddaan gaal siiyasa dembi miyaa iga imaanaya nacam masalada qofka markuu dhinto wax bixinaya cidda la gelinaya ma ogsoon asaga ma oga marka inuu khayr u niyeysto sadaqay u noqonaysaa qofka la gelinaya ma ogsoon ama gaal hala siiyo howl asaga u taalmaha hase qofka hadduu wixiisa waqfado u sadaqaysto sadaqadaas ilaahay subxana wa taala waa ka aqbalaya haddaan qaadana waa qoolka dhahayo waa bannaan yahay in wax la tabaruco dadka waxaa iskaaga qaldanaa hadda waxaan sheeganay masalada sharciga wax laga qabo ninka qoolkaas qaadanayo oo ah inay bannaan tahay iyo ninka qoolka diidayana waa sheegay iyo nin kasta adiladiisana waa sheegay qofka culamada diida waa sheegay walaalkay haddaa su-aashiisa soo noqdo cumar haddii laakiin aniga oo fatwo ahaan i weydiiyo oo su-aal diini ah sheekh usuuli arrintaas maxaa rajixinaysaa adadoo i dhaha aniga markaas shaksiyaan ii weydiiyo intuu ilaah cilmiga ii geeyey waxaan rajixinaa inuu qofka oo doonad garaynin maxaa yeele nolosha bini aadamka ilahi subxana wataala anaga mu'miniinaan nahay qofka muslimka ah noloshiisa waxaa laga yaabaa kelida aad bixisay inuu ku noolaanin maxaa yeele anaga waxaan ogsoonnahay ajal in loo dhinto laakiin kelidaada inay wax nooleyn karin ama wax badbaadi karin asbaabta inaan la imaano maadaama waxa ay asbaab le ee tahay oo 50 weli ee tahay aniga waxaan qaba qofka ilahay noola kulmo asagoo kaamil ah oo taasaan dadka u fadwoodaa mar kasto aan idhahaa qolkaas ay la rajaxsan okay sheekh cusmaan waa arrin wanaagsan waana ku soo dhaweynaa laakiin ma diidani in qolada qala culimada kala qaato alle qofka qaata ma dimbaaba saajid waxa ku jira su'aasheeda ma dimbaabayo ma dimbaabiso maxaa yeelay culimada dhan qabto laakiin sheekh cusmaan arrintu meeshay ka guntami la-dahay waxay tahay haddii caawa ilaahay nooma keenay qof adiga aada u jeceshahay uu keli u baahdo oo tidhaahdid kelidii la yidhaahdo qof gaala laga soo bixinaya qofkiina kelidii qofkii la siiyo oo qofkii qaato kelidii keenaysaa si ehelkaagii loo badbaasho iyo qofkii aada jeclayd laakiin haddaad tidhahdid kelidii qof kale oo qof kale jecel yahay oo adiga aan shuqul kugu lahayn yaan la siinin oo adoo kaamil ilaahay la kulan soo kuma muuqato marka anagu u baahana inaan qaadanayna markii ayagu u baahan yihin aan diidayna aniga kama hadlin markaad waxaa isku qalada labada dadka inta badan taas isku qaldaan
qofka nool oo qof la badbaadinayo kama hadlin anigana qof aan badbaadiyo kili u bixiyo hadda aanta warka ma waxaan ka hadlaa markaa dhinto xataa haddii lagu badbaadinayo hooyadii haddii lagu badbaadinayo xataa ma ogoli eri sooma anig gaalka kaliya kama xasdin anig oo waxaan eri maaha gaalka yaa la siin ma dhihin xataa hooyada yaa la siinna eri ama walaalkay oo gadaashii dhimanayo maxaa yeele waxaan doortataa geeridiisa waxaan misanay walaalkay ajishiisa inuu ku dhimanayo waxaas culamada saas tiraan laakiin markaa noolahay aan dhahayo aniga u baahanahay oo asna u baahanahay gaar wakaas kaas isla fahanay qofka nool oo qof nool siinay kama hadlayno hadda way dhacdaa in badan waxaa arkaysaa qof waalid ilmihiisa keli u bixiya ama keli waalidka inta badan way dhacdaa labadiiba nool yihiin waa banaanta taas shuruudaheedu waxa waaye waa laba wixii laba ah masalan oo laga maarmo qofka naaqis u dhigaynin laakiin beeca ma banaan saas dadka keliya waa gataan dadkan ma ogsoona beeca ma banaan waa garta hal arrin raba shaqsmaan inaa igaga dhacdo hal mar ma waxaan leedahay ilaahay kuuma keena haddii tii ilaahay berita kuu timaado hooyadaana keli u baahan tahay ma siinaysa kelidaas waxaan leeyahay maxaa aaminsan aniga inaan tasarruf lahayn ma aha anina xasda hooyaday waxaan ka jeclahay ma laha laakiin tasarruf ma lihi oo maalkayga waxaan maalkayga ma bixin karo hooyaday maalna u soo xado ma siin kara aan lahayn aniga saas camal ila taan qoladii saasaan irjixiyay naam maaha دكتور مداخله مرتين مش تليفون هرمل سوداء تليفون سوداء ما سنتاي واقع خدك تليفون كان ديب نقولنا ان قف ku jira hadii la yiraahdo okay taleefanka intuu noo soo socdo video yar ayaan jeclahay in soo deeyno oo aanu jeclahay inaad daawataan video wuxuu ku saabsan yahay arrintan hadda aanu ka hadlayno iyo soo sharciga isku bedelayo ingiriis way ku hadlaysaa kale doctorka noo sheegaya noo macnayn doona daawasho wacan. From spring 2020, the law around organ donation in England is changing to help save and improve more lives. You can choose to opt in or opt out by recording your decision on the NHS Organ Donor Register. Whatever you decide, make sure to let your family and friends know. To find out more about your choices and to record your decision, visit organdonation.nhs.uk. The law around organ donation is changing. Pass it on. وحاجات ومغلسين دكتور maxay tiri gabadha hadlaysa gabadhan waxay tiri spring ama sanadkan magaceedii Maarso 31 wixii ka dambeeyo waxa sharci cusub ayaa dhaqan galayo sharcigaas oo ah qof walba iyada go'aankeeda iska leh oo dhihi karto organkeyga waa dhiibaa ima dhiibaayo go'aankeeda iyada iska leh magaceedii iyadana go'aankaas kale oo dhihi karto waa dhiibaa ma dhiib foomkaas daa buuxiso oo opt out liida opt out macnaheedu waa waxa waaye waa ma rabo waay hadda opt in tirahdid ama haddii kale aad aamusto macnaheedu waxa waa raali ayaan ka ahay waay marka dadka qaarkood waxay isweydiinayaan dadka oo waxyar inaa ku dararabaa dadka oo waxaa magaceed organka sugaya waxaa jira database oo la yiraahdo wadankan NSS database waxa la yiraahdo macluumaad lagu aruuriyo oo ay ku jiraan muslim iyo gaale ay ku jiraan marka qofta organka markay qofta ay dhimato organka laga bixinaya dadkaas oo dhan waxa waaye oo database ku jira ama macluumaad ku jiraan waxa HLA pirna la yiraahdo qofta organku qaada kara ama ku qoran iyo nooc oo HLA pirinkiisa in qofka dhintay iyo kanoolo marka qofta isleeyihiin marka qofta markay dhimato isla marka laga baxsho waxa laga qaadaa dhiiga laga qaadaa marka HLA-geeda la fiirina marka qofta UK meesha ay ka joogto ay qaada karto organkaas ayaa loo dirayaa meel al meesha taa loo dirayaa marka waa qofkii lahaa waa la kala qaybinaya hataa haddii ay noqoto qof oo weyn baarkeeda haddii uu yahay laba qaybood loo qaybinaya qaybna waxaa la siinaya qaybta weyn iyo qaybta yar kale qaybta weyn waxaa la siinaya dadka waaweyn la siinaya qaybta yarna waxaa la siinaya ilmaha laba qofood la badbaadina ma koraya hadhowta asaa koraya asaa weynaanaya marka waxaa laga yaabaa xubno laga saaray qof Soomaaliya misalan soo qaadano in la siiyo nin ku nool Scotland oo wadnaha laga hayo wadnihii in la siiyo asagana waxa laga soo qaaday qof Scotland joogan in la siiyo qof kale Soomaali halkan jooga labadii qof saas loo badbaadiyo in qoonaysa daawada waa maqlaysaan idinka iskala go'aankaas ugu dambeynta opt in waxa weeye raalli baan ka ahay ama haddaad ka aaminsid waxay la mid tahay inaad raalli ka tahay haddii aad tidhaahdo opt outna waxa weeye laguma taabanayo oo sida Sheekh Cusmaan Suuli sheegayo adigoo dhammaystiran baad la kulmaysaa rabbiga dooqaada iskale anagu kuma lihin waxaa samee macluumaadku baan kuu soo gudbinaynaa khadka taleefanka halow السلام عليكم. عليكم السلام TV iska baxtay soo dhawow
اوكي عبد الحافظ وقت السلام المقاعد ومصطفى اسمان وكسر الله مقاعد الاسلام soo dhawo mustafa وقت السلام هذه دكتورك يا شيخ اسمان با aad baan kaaga qaadnay سؤال يروك كوبن با شيخ دكتورك وجينيه weydii ان haddii aan opt out idhaahdo waanan idhi anigii familygay hadda kor waanan loo soo diray warqado la leeyahay waa okay waa ogolaanay codsigiina macnaha waa ku jirtaa system inaad opt out tihiin su-aasha dhakarkaan weydiinaya marka bacdamaan imika databaseka aan ku jiro aan ahay nin diiday inaan maaragta donor noqdo beri ka maalin ilaahay uma baahiye hadday noqoto inaan baahi aniga organ aan u baahdo ma la oranayaa isba waa kii diiday isagana yaan waxba dad looga doongaranayn nihow mustafa waa mahadsantahay su-aal fiican weeye dhakhtarkaan ku wareejinaa laakiin intaanu ku wareejinin maxaad adigu haddaad rabtid inaad qaadatid u diidaysa inaad bixiso adigu wallahi xaasidnimo igama aha laakiin kolley wax badan oo iminka iga caddaaday sheekha fadwadiisana hore umaan ogeyn waa gartay mana rajadeyduna inaan ilaahay iga baahisiiye maaragtay maba maaragtay ma idhaahdo waa gartay fiican waa hagaag laba qadoo kalaa ku jirta laakiin waxaan jeclahay doctorka inaan hormariyo su-aal interesting oo mustafa keeno dhinac kale ka fiiriyey soo dhawow mustafa waa mahadsantaha horta su-aal fiican waa su-aashaada qaybta opt outka iyo opt inka iyo qaybta organ donorka laba qaybood ay kala yihiin wax xiriir iskule ma jirto medicalkan waxa waaye qofta way diidi kartaa go-aanka iyadaa iskale waxaan u diidaysaa nafsiyin ama diini ahaan inaa adoo nool wada duugaa rabtaa marka arinta oo haddii hadhowta aa keliya beeshid oo aad haddaa opta out tirahdeen ma aha in lagu diidaya taas sharciga waxa waaye magaceedii waxaa jirto equal opportunity qof walba xaq ayay leedahay waxaana ka mid noqonaysaa liiska dadka sugaya organada sugaya ay ka mid tahay shaqo isku malaha waxay kala tahay arrinay kala tahay waana kala gedisan tahay go-aanka adaa iskale waxa waaye magaceedii waana diidi kartaa hadhowtan haddii aa beeshana magaceedii organka waa qasab lagaa qor qof jiran takhaatiir haddaana qof jiran haddii noola keenan waajib waxay nagu tahay inaad daaweyno marka waajibka saaran takhaatiirtu waxay tahay inay daaweeyaan in lagu daaweyna waa tahay haddii waqtiga adduunka aa ku leedahay ajasha allah rabbiga iska leh ajashaad haddee dhammaato waa tegaysa laakiin ajasha haddii adduunka aa ku leh inaa wax ku cunto rabbi ayaa ku siinaa organkaas asaan kuu keenaa alxamdulilah su-aal kale iga baxda halkaas aniga mustafa waa mahadsantaha cabdi waa kaa dhamaata oo malaynaya asalaamu calaykum su-aasha kale waxay tahay walaalka su-aashiisa igaga baxday nin asaga wuxuu waa diiday aniga hadduu ra'yigiisna u bedelo u rabo mar labaad website ma geli karaa ma bedeli karaa no ma ka dhigi kara si fiican nacam waa geli kartaa intaa rabtaa bedeli kartaa hadhowta haddii aad isbedesho oo aad tiraahdo magaceeda fikradeydii hore waa bedelay go-aan kalaa qaatay waxaa rabaa organka inaad dhiibo waa lagu ogolyahay inaad dhiibto mar kale yes waa la ogolyahay labadiinu aad waa mahadsantihiin xayisiin baa dhawaan noo soo socota khadka telefonka marka hore aan u gudbo halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waa ku soo dhaweyna walaal magacaa canab baa la yidhaah canab soo dhawow maxaad jeceshahay inaad kaga qayb qaadatid barnaamijka sheekha waxaan weydiin lahaa ilaahay ha fudaaye haddii la yidhaahdo inankaagii dhiig la-aan baa haysa miyaanad u shubteen dheh dhiigda qof dhowr qof loo shubayo shiikhu uu ka jawaabay su-aashaas marka fursad kale aan ku siiya si kale u dhig haddaad doontid wuxuu yidhi wax jidhkayga iyo waxba ma qaybinayo maaligu waqtii salamkiisii buu yidhi kor u yara hadal adoo raalli ah canab waxaan doonayaa hadduu yidhaahdo qof ilmihiisa canabay telefonka kaama maqalno somaha waad ka fogaataan filaya hagaagumaanan maqlaynin iminka si fiican baan kuu maqlaa bal israaci hal mar waxaan ku idhi canab t v-gaad daawanaysaa mushkiladu waxaa weeye t v-ga la socotaa codka telefonka t v-ga waa kala horeeyaan fadlan iska bakti t v-ga dabadeedna markaa nala hadal may maqlaysaa imaka haa si wacan ilmahaaga haddii la yidhaahdo dhiig buu u baahan yahay ushub ma u shubayaabaan ku waa garta waa mahadsantaha waa lagaga jawaabaya aisha xuseen dhiigga
waa ka gedisan yahay organka dhiigga magaceedii dhiigga gaduudan camal waxaa 120 maalmood ayuu jirsanayaa qofta waa ka dhamaanaya wuu ka jajabayaa dhiigga kaloo cadna waxa waaye wiiga bis ayuu jiraa magaceedii dhiigga iyo organka waa kala gedisan yihiin dhiigga waqti walbaa la sii karaa qof walba qof kale waa la sii karaa noloshiisoo dhan ma haysanaya dhiigga waxa waaye waqti yar oo gaan waxaa la mid ah oo haddii la yidhaahdo oo dhuuxa qofta haddii la siiyo taa qofta way la noolaanaysaa way ka gedisan tahay organ ay noqonaysaa markaas laakiin haddii dhiigga qof la siiyo waqti yar un bay haysanaysaa kabacdi waxa waa dhiiggiisa ee soo fiicnaanahay wuu caafimaadaya qofta siisa dhiig waa kaba baxaya sheekh cusmaan نعم مسألة ديجا وحيابها لقى ريبك وجرتها أورجن كل مد مع صوت شيء قوي محيا لي ديجا وحلي رأسها يتجدد قفك حتى بحيبة وصلنا قناع صحوه وعصير عبتدي وحرنتها كلي عصير عبتدي مركز ديجا ولا بحين كرا رأسها وحلا مد يصير كل جردي جردين وأبور ما يريد أصل فتيز قف مقارك دراسية قف مقارك لا أبور ما مركز وحي قفك بدل كيسو هلايو وإنه تبرع أجره كهلايا ديجا أذو بحيوة في عنده وحقاق ومغلسان ديق بحية خاطيرتي علماء الفاسدين ليهين لين كلو كحق هلاو السلام عليكم عليكم السلام ولا الكرو إلى هذا المقعة ولا لو مجيء من تريفا ليتها محارب جير هذا فاضمه أي فاضمة سولو محاج عشان ويدي سد أبو وحن كويتينا وركوا يردافع ما يقول بوقاين قانك أبي للجارة ما ليري go-aanka abril baa la gaarayaa abril wixii ka dambeeyana sharciga la howlgelinaya markaas go-aan ma lihid miya maya inta abril la gaarin ina foomka buuxsato waay foomka inaad buuxsatid weeye go-aan adigu inaad qaadatid weeye haddaad go-aan gaartid kadib oo aad hadhowti inaad isbedeshid aad rabtid misaal ahaan waxaad tiraa laga yaabaa waxaan rabaa inaan organadeeda bixiyo haddii tii ilaahay ii timaado laakiin sanad kadib waxaad go-aansatay inaad tiraahdid arrintaa waa ka noqday waa ka noqon kartaa laakiin sharcigii sidiisii weye laakiin inaad qaadatid iyo inaad diidid adiga hawl kuu taallo weye foomka intee laga helaa foomka waxaad ka helaysaa website-ka waxaad tegeysaa NHS-ka qaybta donorka ayaad eegeysaa dabadeedna halkaasaa ka helaysaa macluumaadka o dhan website-ka oo NHS kaas aa laga helaa aada umaadsanta waa mahadsantahay dhammaantiin waa idin salaama thank you xayisiin yar baa soo socota sheekh cusmaan haddaan dib ugu soo noqdo adiga haddii ilaha yidhaahdo laakiin waxaan ka hormarinayaa global net waa macadka ugu weyn ee IT-ga macalin cabdalle oo maaragtay muddo badan soo waday arday 10 kun ka badanna ay ka baxday waa macalin soomaaliyeed kan wax la barayana waa soomaali kan wax barayana waa soomaali ardaydii ka baxday qaarkood ayaanu halkan ku wareysanay ka soo daynay oo ka shaqeeya golaha wasiirada ee dowladda ingiriiska iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska macalin soomaaliyeed mirihiisii iyo arday dadaalo go-aan qaatay markay gacanta isla jaan qaadaan natiijadii waa tana daawasho wacan When I met the Ma'alin, straight away I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. Global Net aniga waxay islisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alan and the students at Global Net. qofkii la yaab uu noqon isku laho delivery iyo self-employed oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo waligaa lagama walwalo qofa diinta islaamka inaa muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa. That 1 year, less than a year, I studied here, Global Net. Was 10 times better than in Wadida University. وحقاق Global Net iyo macalin cabdallah ودايما الآن إن شاء الله تعالى وحقاق sheekh cusmaan waxaa jira culumad kasoo horjeeda waxyaalahan oo dhan oo leh qof muslim qof gaala ma siin karo maxaa la yidhaahdaa organ ma siin karo mamnuuc weeyaan hanti ilaahay uu leeyahay weeye ammaanay kugu tahay inaad xifdidid weeye culumadaasu daliiladooda markaa u fiirisid kuwa kaloo kasoo horjeeda yaa adag baad isleedahay adug
waxaa adag qolada dhehaysa nafta gaal iyo muslim ma laha naf la badbaadinayo gaal muslim ilaa gaalka hadduu yahay gaal muxaarib oo dagaal naga dhexeeyo kaasoo kale waa laga reebaa laakiin gaalada kale oo ilahay laa yanhakumullah aayadda hadda aan sheegna ah oo inaan saad u falno bir u falno naftu waa lamid oo islaamka kalama saarin markii naf laga hadlayo حتى آيات هذا كان هذه هو بني إسرائيل وكتبنا على بني إسرائيل النفس المركز لها سبحانه وتعالى ومن أحياها نفع لها هذا نف نوله نفط مسلم قال ما لها ولذلك إحسان كوفي عني مركز قال إن لك هالمي بل ما كرت مؤلفة قلوبهم من النقدام الدين تيجعل هذا مركز دليلك الله هاي dadka gaalada isku hal wiil ku wada ridayo oo dhahay gaal oo dhan hala gooyo waa qalda daliilkooda ciif way ma daliil sax oo qawi ma ah in qofka la kala tafsiiliyo oo ayaa wanaagsan la kala saarahana gaalka hadda jiiraanka kule xaq uu leeyahay naftigiisa jiiraan xaq jiiraan uu leeyahay asoo gaal ah marka islaamka waa diin macaan oo aan cunsurid lahayn laakiin dadka qaladaadka ay galayna waa mushkil ah marka dadka ayaa muslimiinta diinta dadka nacaysiinaya diinta waa macaan aqoon dar jahliga nacaysiinaya lidalika qofka jahliga oo ku fatwoonayo dhahayo qaal waa halalaayo kaas وأن كلا ساركا معنا وقت المشركين كافة عمل آيات هذا التفسير كذا ما يقال قاتلوا المشركين اقتلوا لا معنى كلا ذا قاتلوا حوا مقاتلة ومركي كل دجال ما يلا دجال ما مركز ولا إسلاينيا لكن مسالمة وسلمة إن الدجال أتراه قال هن أو دشيت ما بنان ولذا قال كحول الذم يوليه أحد يوليه نعيبا وكلا ليه مركا إن قف دين أقان وقف وقال هالويل هو ذريديس قرتي مركا وحلا هذا هاي Mrs. Smith haddaan miisaal ahaan usoo qaadano oo islaan ingiriis ah wadno u baahan qof dhintay oo muslim wadnihiisa la siiyo wax dhibaataa ma laha waa beriga ka mid nacam waa gartay doctor waxaa jira dad wadnaha oo kale da' buu ku xiran yahay wadnaha da'daadu intay haddii da' waxaa jirta haddii la gaaro qofku gaaro wadnihiisa aan la isticmaali karin arrintaa maxaa ka jira run waay dadka qaarkood wadnahooda lama siiyo qofta oo sida high blood pressure qofta qabto camal lama siiyo da'da konta sanad qofta kontan iyo wax la jira jirtay qoftaas fit ahayn waxa la fiirinaa qoftaas fitnimadiisa qofta hadii ay buurinta caafimaadkiisa BMI-giisa la fiirinaa qofta hadii caafimaadkiisa oo fiicnaan qofta kale ma siinay sababtoo waxa waaye high blood pressure iyo wax badan u keenaya waxa jirta xataa dadka marka laga baxsho organ donorka dadka takhaatiirtu waxay la tacaalaan dadka maskaxda ka dhinto oo waqti badan lagu hayo mashiinka organa qaarkood dadka la siiyo dadka qaarkood waxay la kulmaan baarkooda ama wadnahooda si fiican uma shaqeeyo waa ku dhibtoodaan hadda waxa waaye baarka ugu dhib badan horta tan si fiican u shaqeyso waxa waa keliyaha sanooyin badan ayaa lagu guuleystay laakiin tan baarka sanadahan dambe waxaa timid technique cusubaa timid oo radiotherapy iyo stem cell wax badan la isku daraa marka daawadii oo magaceedii oo magaceedii immunology-da oo jirka difaaciisa celiyaysay oo la sii jir waa laga yareeyaa waxaa la siinaa marka hore waxaa waaye radioactive lagu sameynaa kabacdi waxaa waaye magaceedii stem cell la siinaya ma u baahahay qoftaan magaceedii rejection ma sameehay daawadii oo dhanna waxa waaye waa technique cusub hadda socoto waaye oo jirka bini'aadanka oo organka soo ku qaadan lahay oo magaceedii oo rejection u sameeyay marka waqtiyada hore waxa waaye waxaa la siinaya qofta inay daawo badan cunto abadiin waxay cunaysaa immunosuppressor waxa la yidhahdo oo magaceeda jirka difaaca ka celinaya sababtoo ah qofta oo magaceeda oo dhiibtay organka dhiibtay iyo qofta qaadanayso way isdiidayaan laakiin haddii family ay yihiin badanaa uma badno sida twinka marka ugu horeysay organ koowaad la sameeyey 1933 la sameeyey wuxuu nin ruushia sameeyey laba twins ahayn waxa waa caadi u dhacday laakiin mataane ahayn mataanaha dhibaato marka waxaa la arkay 1960kii ayaa dadka qaarkood organada qaarkood rejection dhacay sababta markaas la baraarugay oo la yiri maxaa keenay sababta jirka ayaa jirka kala diidaya ka bacdi waxaa la bilaabay in daawooyin lagu caburinayo jirka inuu diido magaceeda organkan ay la sameeyay laakiin hadda technical kale cusub timid iyo waxyaabo kale medical ah oo research ku socota jirto hagaag daawada waxa maqlayseen dhakhtarku wuxuu yiri BMI waa body mass index bay u taagan tahay marka sidaas aydan oo la socdo waxaan jeclahay kale inaan weydiiyo dhakhtarka Xuseen hadii waxa dhici karta mararka qaarkood inay timaado arrimo degdega qof inay ku timaado oo sida shilalkan oo kale ah qofka shilka ku yimid oo dhakhaatiirtu ay yiraahdaan qofkan inuu noolaado malihin ayaa nafta hayo oo noo muslimiin baan ahay laakiin markay eegaan waxay barteen
ay qadariyaan oo qiimeeyaan waxay go-aan bay ka qaataan qofkaas waxaa la yidhi shil buu galay xaaladiisu halis weeye dadka qaarkood waxay ka baqan karaan in la boobsiiyo oo xaqiisii maadaama uu duruuf ku sugan yahay la dhinac mariyo sidee looga aamin noqon karaa arrimahaas oo kale horta hore midda koowaad waxa waaye takhtarka wuxuu go-aan ka gaaraya asaga kaligiis ma gaaraya tiimka dhammaan go-aan gaaraya qofta consultant markii qofta ay ka dhimato maskaxda ay ka dhimato brain diet la yidhahdaa haddii maskaxda ay dhimato qoftaas waqti ayaa lagu haynaya ilaa waqtigaas haddii oo magaciisii oo soo fiicnaa waayo waxaa lagu dayayaa qoftan inay recover sameyn waxaa laga fura mashiinada ama waa noolaane ama waa dhimanaysaa qoftaas qadarta allah haddii ay jirto waxa waaye qofka ay xakarta ma jirto waqtigaada dhamato kullu nafsul daaqatu mawt muslimka waa inaa aamina qadarta ilaah inaa aaminaa waaye qof kugu celi karto nolol ma jirto mashiin nolol kuguma celi karo waxa waaye dad fara badan oo taajiriina sanooyin lagu celshay waxa waaye prime ministerka oo yuhuud meeqsana lagu hayay mashiinada marka mashiin magaciisii Aaron Showron mashiin dadka nolosha kuma celsho maskaxda hadday qafta ay ka dhimato waa dhimatay ilaahooda aaminaan qof magaceedii oo nafka qaadi karta ma jirto magaceedii qajisha hadday timaado waa timid laakiin magaceedii takhtarka wuxuu ogaanayaa haddii qofta maskaxda ay dhimato waa yaqaanaa waxay yaqaaneen guidelines ay leeyihin wax badan ay leeyihiin haddii ayadoona taas marsiina ma laga bixinayo marka waa dhimatay marka waxaa leedahay qadarta iyo dhimashadu waqtigeedii ilaahay goortu qoray leedahay laakiin yaan laga walwalin oo laga biqin oo la odhan madow baan ahay muslim baan ahay dhakhaatiirtu ay necib yihiin cadaan weeye aabbahay adeedaday mashiinkii waa laga saaray inayna dilaan baraba inaan saas la odhan baad soo jeedinaysa nacam nacam waa ilaah ila aamino tawakkal cala allah wakafaa billah wakiilan qof wax kugu sameyn karta ma jirto jisha hadday timaado waa timid sheekh cusmaan wuxuu leeyahay ilaahayna tala saaro dhakhaatiirtana aamin maxaa leedahay adigu نعم مسألة وصو نقدان تطرق سو شيغي انغا سؤالها دور بانان لا ويديا قفا ku soo wacayso ehelkeeda aabaheed ama qaraabadeed ama walaalkeed oo mashiin ku xiran yahay hada doctorku wuxuu sheegay wuxuu yiri ayaga consultant go'aan gaaro la tashiya sameeyaan team dhan waa weyn laakiin marka qaarkood su'aash waxay weydiiyaan dadka ehelkay weydiiyaan maxay yar dadka waan soo wacan anaga waxay ku leeyihiin mashiinkan ku xiran qofkan waa dhintay dhimasho mashiinkan ku xiran yahay marka haddaan ka furno inuu dhimanay waa u sheegaya marka waxaan rabnaa inaan fasax nasiisa inaan mashiinka ka furno marka reerkii isqabsado anaga marka maashaas waa laga soo waca culimada la soo waca anaga fatwadeen waa cadahay waxaan dhina qofka muslimka involved iyo ku naqana ama iyo ku shirkoobin ama iyo ka qayb qaadan qof muslim la dilo dhakhtarka waxaan fasalu ahla dhikri asaa qofka waxa u celisaan dhakhtarka su'aashaas ku celiya dhakhtar anaga go'aankaas anaga ma lihin ka foorna ma dhihi karno ku daayna ma dhihi karno idinka hawshaas kale go'aanka gaara qofka marka wuxuu bari ka yahay على الأقل أبيس ولكن سجى قوان كيس وديل كم جارين. مركا أنت بدن إيجا أدو أتكسر لحيان. تاسوا مشكلة ومد كلا إن فن رالك هذا أنا مرة بدنا تكنا سوما هلا دانا. أسك. إن بيس جاردن كمرة كاتك ماشي عندك كلو أسو. نك جوجانين واداد وصاحبنا هاي أرن عجيب ويشجع. دكتور كأرب أرن تسنويدي هذا عصيدة إن هذا هو مهم. وحي شيء وحيري سومالي ذا geerida wuxuu wadankan lagu badan yahay Asian dadka kala ka badan haddana wuxuu geerida iga u badan wuxuu yiri daily 3 4 5 4 alkeena meeda Soomaalida marka ninku waa dugta hanal duuga iska dhaxan marka wuxuu yiri something ka wrong ah oo xagga oo khatarka ah ama kansar qofka u dhinto ama cudur kale u dhinto ma dhici kartaa uu yiri inta badan markay tirkoobka ay sameeyeen Soomaalida marka tiradeen la fiirin anaga Asianka lama qaato waxay ahayd Asianka in wax badan la duuga ahayd anaga duugida ku badan maadaama inaga fara badan yihiin sida aqliga markii la xisaabo marka ma anaga iska soo qaadano dadkeen waa dhintay maal dhahnaa oo dacwooyin ma furna miya ama ila asbaabta in laga hadlo waa fiican tahay marka doctorka khayr Allah si wuxuu leeyahay ajish ilaaha hayo laakiin qofka inuu yiraaho aqilha thumma tawakkal ina xirno marka hore hadii wax anaga gaar noo yihiin sidii hashi dabar markaas ka ilaahay tala saaro laakiin hashi iska deysid inay ahayn marka in la weydiiyo doctorka arintaas ee lagu hortagi kara Soomaalida markaan geeri intaas meedan raacnaa ka wacdina aan tagnaa marka ninkaasna arintaas uu sheegay arintaas ka waran doctor horta hore wax jiro horta waa jiraan Soomaalida midda koowaad dhibaatada ka jirta waxay tahay Soomaalida luqad xumo horta luqadda oo ay ku liitaan iyo mararka qaarkood ee takhaatiirta qaarkood ay aaminaan dhakhtarka GB wuxuu leeyahay
marka koowaad inuu isku taraagareeyo oo magaceedii daawo inuu ku daaweeyo isku dayo oo magaceedii oo dhiig kaa qaado oo ku jaagareeyo mar labaad magaceedii oo test kale oo kusoo mar saddexaad kuma hay karo xaq waxa uu leedahay laba mar haddii uu magaciisii oo isku dayey mar saddexaad waxaa leedahay ninhow waxaa xaq u leeyahay inay ii gudbiso isbishaaliste waxaa kaloo jirto badanaa soomaalida takhaatiirta wayba ka cararaanbo maba u tagaanbo waxayba magaciisii waxay tagaan waqti oo arrintooda fara ka baxday gaar ahaan ragga badanaa ragga waxaa waaye waa iyadoo fara ka baxday oo magaceeda leyd ay tahay oo arrinta wax laga qaban karin iyadoo xataa oo mararka qaarkood la daawey karo arrimaha kansarka qaarkood la daawey karo ayay waxay aasanayaan dhinacyo kale iyo magaceedii waxyaabo kale la aadinaya oo qalad ay tahay quraan alxamdulilah daawo quraan alxamdulilah quraan shaydaanada bixiyo kuwa kale oo magaceeda kuwa waxaa ka wada wadaaday qabta iyo waxyaabahaas kuwa dhaaq dembi waa shirka waa taas iyo magaciisii in la yidhaahdo caano geelow doonaha iyo magaceedii wax heblo geeda heblo ma ina waqti ku dhulmaa waxaa jirta daawooyin qaarkood oo magaceedii oo la samay karo waxyaabo badan oo la daaweeyaa jirto midda kalena waxaa waaye soomaalida aan ku arko qaladaad fara badan ay sameeyaan qofta haddii ay kansar ay ku dhacdo waxaa waaye baniga qaadayaan qofta kansarka hadduu ku dhaca waxaa chemotherapy waxyaaba waxaa arkay dad fara badan oo dadkan qofta intay imaadeen salaamayaan qofta waxaa waaye qofta jirada qabto qoftan kale xubin kuma daaranaysa qofta u imaanaysa waxay u keenaysaa virus iyo bacteria u keenaysaa jirkeeda difaac ayaa ku yar kan banaanka imaana loo diidaya loo diidaya ma gudbin kara kansar marka ayagoo banaanka imaadeen ay hagareynayaan ee gacantu dhiba jecel waay laakiin dhibka u keenaysaa ka badan marka waxa waaye soomaalida dhibka ka jira waxay tahay midda koowaad ayagoo dhakhtarka daahayo iyo luqad xumo midaas arrimahaas waxaa laga yaabaa inay tahay arinta keentay magaceedii dhimashadu inay badan tahay gabagabadan ku socon arrin muhiim ah inaan ku weydiiyo ku saabsan wadaadadan rooxaanta iyo mingiska iyo booramaha tuba weli maana arkin nin wadaado asaga mingis ku dhacay iyo booramo ku dhacay always islaan yara iyo ilmo yaraa la wadaa ma xanuunkan jinka ayaa cunsuriya oo dumarkii ciyaal ku taargadgaraya mise waa laga faa'iidaysanaya ما ولا فائدة سنة بس سؤال مهم وهذا إن لو يديه لفته وهذا سؤال شاس هذيك محوني يقول دعوة اللي راح هل وهذا كل عبارة ولا فائدة سنة ووقتي وحلو منها وحقيقة مركز دكتور سوشيال وعدي وقفك كهرتجد كده هذا قفك جيرد وبدنا يسع هذا دكتور كوليت وتجو نيك سومالي هذا وحكوا لي مرمر وحوا أمسين حكوا لي تخترت كده ترى هلو وحين نقصوا الشيء جاي يوم نقصوا الشيء معناها ليش شيء حتى مرة بيوح وحيس وقرصنا عذرك وقرصنا دو مركز مر وحو قاري وحلقة غاب كريم مركز أنت أسمع هذا صوت شيء وعنك النبي إلهي سبحانه وتعالى نبي وحنو شيء اللي يزداوي ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء عذر يمد مجر إلا دواء للسودجي مركز إن اللي يزداوي دينتي الواقبته مركز قفك إنه داود وسكو مشغولي وحيابه وقرافاته وحكوا نكسين ودخترك وتجا إلهي وتلا سارتا قرآن كاس وتلا سارتا وإلهي آمن صوت شيء غير وقت كست أجله لا هاي وبانك وقادن حتى ليلة كان سراقبته إنه يراه إلهي سبحانه وتعالى يا عذرك كيانك إنه الحمد لله وده وهاجاك داود يروح على ذي حسوسيننا جودي ما دام نكون جرلو أن حملها مهم هدي وقف كل انتو أصلاً صحيحين فهم كان لجلب حيو أما أصلاً انتو أجراد لجلب حيو سقف كلا لوجه فإيديو أن أيام ذي حسوسيننا استورده ده يعني جنسو جود بيننا تضبط حملات أو مهمة ويا أو مدول بحبين أن مهمة أو نلاش قريبين كقارتها أيام كعسرنا إن التكنيشن كانوا نسوا جود بيان حملنا شنو نقول تضبط حملات ويا أو هذا ميس كسارن أما إشياء شاشة كاركيسان أن أي قفكي عن صحيحين أما أقلاده أو صحيحة لقبت بعدين waxaa laga yaabaa toddobadan xubnood qofka laga saaro in toddoba qof lagu daaweeyo sama doctor naam ama ka badan toddoba qof ama ka badan inay ka faa'iidaan laga yaabaa sababta beerka laba naqanay waa la kala jaraya waa maqlaysaan beerka oo la kala jaro kaliyaha laba qof baa ku badbaadaysa marka anagu idin ma lihin kana qaybgal idin ma lihin laakiin waxaan leenahay macluumaad idinku filan waan idin siinay internetka taga baara ogaada go'aan qaata waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala inaanu barnaamijyo kale halkan ka samayno oo mawduucan khuseeya gaar ahaan markii sharciga uu hawl dhaqan galo oo aanu markaa idin keeni doono dad ayaguna sidaan oo kale oga hadla maadaama dhinacii diinta iyo dhinacii daawadaanu ka fiirinay dad kale ayaan insha allahu taala idin keeni doonaa labadiinoo waa mahadsantihiin doctor xuseen iyo sheekh tv-ga labadiinoo waa mahadsanyihiin cusmaan
ilaahay subxana wataala miisaanka xasanaadka u saara wanaagooda. farsamadu waa cabdixakiin faqi. waxaan jecloo kalena mahad celiyay doctor liibaan iyo doctor abshir laftigooda aad baan ugu mahad celinayaa. master baaskiil laftigiisa waa u mahad celinayaa. intaa kadib waad maqashan sheekh usuuli wuxuu yidhi hadduu kuu yimaado nin wadaada oo ku yidhaahdo mingis ama boorame ama maxaa la yidhahdaa jim baa kugu jira, bismillaahi goortay dhahaan booba kabihiina. asalaamu calaykum waraxmat ullah. ما شاء الله